wax khaldan ma samayn haddana waan guul daraysanay kuwani waa ereyadii ugu dambeeyay ee maamulaha shirkaddii adduunka ugu weyneyd ee isgaarsiinta ka hor intaan magaceeda si rasmi ah looga tirtirin suuqa taleefoonada sanadii 2000 haddii aad qof weydiin lahayd ma qiyaasi kartaa adduunka ayna Nokia jirin wuxuu ku oran lahaa ma qiyaasi kartaa adduunka ayna badi jirin waxay haysatay 40% ee taleefoonada gacanta ee dunida oo dhan qiimaha shirkaddan wuxuu dhaafay 300 oo bilyan oo dollar waxay ahayd boqor aan marnaba la taaban karin astaan loo arkay inay tahay mustaqbalka bini'aadamka laakiin sidee bay shirkad intaas leeg oo haysata lacagta ugu badan injineerada ugu fiican iyo suuq ka kooban balaayiin qof ay dhowr sano gudahood ugu duntay si fudud maaha kaliya sheeko ku saabsan telefoon iyo qalab elektaroonig ah waa cashar ganacsi oo cabsi leh waa sheeko ku saabsan sida kibirka santaaga iyo cabsidu ay u baabi'in karaan boqortooyo kasta sidee bay shirkad ku bilaabatay geedo iyo alwaax ay u gaartay fiiqa ugu sarreeya dunida maxayse ahaayeen daqiiqadihii madooba ee habeen kaliya ay ku duntay shirkad intaas leeg soo qaado koobkaaga shaaha sababtoo ah barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa korokicii mucjisada ahaa iyo dhicitaankii xanuunka badnaa ee boqortooyada Nokia ee lumisay wax walba intaynu bilaabin muuqaalka aynu ku salino xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam si aan u fahanno masiibada waa inaan dib u laabanaa 160 sano sanadii 1865